shalaytana laba musharax ayuu RRU iska xidhay laba musharax oo cida ayaa la xidhay markaasaa waliba mid ahaanay waa Ingiriis waxa haysa passport British saaka ila soo hadlayay Ingiriisku madaxweynuhu shalaytana markuu ka hadlayay oo yeeray meeyarada wuxuu lahaa iyo barasaabiyada xuquuqda musharaxa la ilaaliyo xuquuqdiisa musharaxiinta la ilaaliyo lahaa isla shalaytana waa xidhay la uu xidhay bal hada uu ka waakara sidoo kale Faysal Carawa oo ka hadlaya arrimo kale ayaa waxa uu sheegay ninka directorka ka ADG-ga commissionka nin siyaasadeed mu ahayn booska waa la xayeysiin jiray ibtixaan baa loo gali jiray qofkii hela ayaa ku soo bixiyo waxa boos aan siyaasadeysnayn wuxuu soo magacaabay nin wanaagsan oo laakiin madaxtooyadiisa xogayihii wasiirada ayuu soo magacaabay geeyay commissionkii horena waa ogeedeen taayeen magaalada reeraac wixii ka dhacay isna waa iska aamusnay waxaan nidhi iska daaya muran uma baahdinay